tartanka iskoolada degmada Kismaayo ayaa galay qaybihii dambe waxaana isku soo haray 4 iskool oo mid kamid ah shalay laga reebay tartanka halka la rajeynayo inuu dhaco kulan loogu tartami doono kaalinta saddexaad ee tartanka iskoolada kulankii lagu bilaabay afar dhamaadka tartanka waxaa wada ciyaaray iskoolada Ganaane iyo Jubba oo ay u soo daawasho tageen taageerayaal aad u badnaa oo ka dhacay garoonka kubadda cagta Wamo oo sanadkan marti gelinayay tartanka dugsiyada ee magaalada Kismaayo markii la baastay kulan la wada sugayay daawashadiisa dugsiga Jubba ayaa bilaabay dardar iyo weerar ay goolal ku raadinayeen laakiin markasta waxa hortaagnaa difaacyada dugsiga Ganaane oo Jaanis u diidanaa weerarka Jubba qaybtii koobaad ee ciyaarta oo ay ka muuqatay xamaasad gaar ah iskoolka Jubba ayaa helay 2 gool oo ciyaarta wax ka bedelay garoonka ayaana mar kaliya jawigiisa bedelay waxaan la kacay jamaahiirta qaybtii hore ee ciyaarta ayaa sidaa ku dhamaatay markii la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta iskoolka Ganaane ayaa la yimid 2 gool oo ciyaarta ka dhigay barbaro 2-2 xidigaha naadiga Ganaane ayaa waday weerar halis ah oo ay goolal ku raadinayeen ayashee waxa markasta ciyaartu u muuqatay mid ka xamaasad badan sidii hore sidaas ayaa lagu kala aaday gool kulaada waxaana ku soo baxday iskoolka Jubba oo markiisii ugu horeysay yimid afar dhamaadka tartankan Awil عبد الله اللبقيت جبلان تي في كسمايو.